weligeed tanoo kale ma arkin. dadkan waa hindi. kaniisadana waxay ku taallaa waddanka hindiya. waxaa lagu dhaqaaleeyaa ama lagu xanaaneeyaa dooliga. dooligaasoo ilaahay camal ay ayaga ka aaminsan yihiin. subxaan allah. annaga ilaaha noo nimceeyey. islaamnimadu waa nimco. soo maxaa lahaa hindi loo caabudayso waa aragteen ama dhagax ama wax kasto, laakiin middan waa dooliga. waxay leeyihiin weliba maxaa lahayay biyaha uu dooliga cabay oo kaleeto. yacni maxaa lahay waa biyo nadiif ah, biyo caafimaad leh, bakteeriya ma lahan. so waxay leeyihiinba meeshaan waxaa usoo raadsanaa inaan maxaa lahay dooliga aan ka barakaysano, aan maxaa lahay biyahaas aan caafimaad ka raadino. waa yacni shay cajiib ah. dooliga wuxuu ku jiraa xayawaanaadka midka ugu wasaqda badan, wuxuuna ku nool yahay meelaha wasaqda ah. laakiin ayaga waxay leeyihiin xayawaanka dooliga ah waa sidii bini aadanka camal oo kaleeto. xasbi allahu naxmal wakiil. waa sidii yacni waxay leeyihiin bini aadanka camal, dadka ma cuno, soo cunto caadiyo cunaa. sidaas darteedana maxaa lahayay waxay leeyihiin biyaha uu dooliga cabay waa biyo nadiif ah. qofkii cabana wuu ku caafimaadaa, midka xanuunsanna wuu ku caafimaadaa. midka caafimaadka qaba hadduu cabana wax dhibaato ah oo ugu imaanaya malahan. meeshan dadka waa imaadaan, dooligaasee maxaa lahaa waxay u keenaan cunto, biyo. biyihii heraheraaga oo dooliga ka tagina ayagaa sii cabo. waaba kaniisadan oo lagu cibaadaysto oo ayaga waxaan ku dhahay dooliga subxaana qaara u sujuudaya xitaa. waxyaalaha aan la yaabay hore waa usoo arkay, iguma cusba aniga, laakiin dadka ay ku cusub yihiinaan rabaa hadeerta maxaa lahay sidaa inaad ka daawataan. waa la yaab hindida dadka waxa ugu aqwaansanay ku jiraan saraxatan. dad badan oo gaale ay way jiraan, laakiin hindida markaan fiiriyey dadku ugu cawaansan ay ku jiraan. wax kasta oonan maxaa lahayay oo qof bini aadana maskaxdiisa kusoo dhacayninna way sameeyaan. yacni lo aragteen qof lo dhan caabudaya oo waxaan ku dhahay lo'da inta la hoos seexdo lugta qofkay ka saarto waxaa la leeyahay maxaa lahaa waa qofay u duceysay. xasbi allah wanacmal wakiil. dooligana meeshaan waa loo sujuudaa. dooligii oo xayawaanka ugu daciifsan oo ugu caqliga xun, yacni eeyaaba la qaatayba. laakiin dooli kulley subxaanaka yaa cadiim. dooli maxaa lahaa inuu wax fahmayo xitaa ilama ahan aniga. yaanyoorta ama maxaa lahay eyga kuwaas wax way fahmayaan. dooli oonan waxba fahmaynin oo keliya waxaan ku dhahay meelaha iska orda waxaan ku dhahay loo sujuudaa. la leeyahay maxaa lahay noo barakay, noo duceey. waa shay cajiib ah. videogan share garaya, meel dheer gaarsiiya. waxyaalaha sidaan oo kaleeta ah oo adduunka yacni maxaa lahay la yaabka lehna waa idinla wadaagi doonaa. aniga midaan iguma cusba. dhowr jeer wiilkan hadda u jeedaan oo meesha maxaa lahayay oo loo sharaxayo waa wiil carab ah oo youtuber ah. soo youtuberada carabta inta badan way tagaan si ay usoo gudbiyaan waxyaalahan la yaabka leh ay dadka ay ku dhaqmayaan. soo youtuberada soomaalidana sidaas oo kaleeto haddii ay joogaan waddanka hindiya, ayaga naftirkooda ha soo gudbiyaano waxyaalaha la yaabka leh oo yacni ay hindida ay sameeyaan. wasaqdooda waa aragnay, waxay caabudaan waa aragnay. dadka ugu liita inay yihiinaaba aaminsanahayba aniga, gaal iyo muslimba. muslimiinta horta ilaaha sharafay. sow dadka ugu liita hindida inay yihiin aaminsanahay. inkastoo la dhaho waddankooda waa waddanka caafimaadka ugu fiican, haddana waxaa arkaysa dad saan u dhaqmaayo biyaha wasaqda oo dooliga cabaya oo waxaan ku dhahay cuntooyinka kalkashi intay faraystaan cajiinka walaaqayo oo waxaan ku dhahay wax kasta ku sameynayo wasaq haddana caafimaadka la leeyahay waddanka ugu caafimaad fiican. waa ma aqaano waxyigaas soomaalida qofkii usoo waxyooday ama qofkii meeshaas usoo arkay aaba la yaabanahayba aniga. waayadan dambe soomaalida waddan aan hindi ahayn caafimaad uma aadaan, ama soomaaliya ha ka imaadaan ama qurbaha meel kasta ay joogaan. hindiya waddan aan ahayn caafimaad uma aadaan. kolley waxaa u malaynayaa xagga dhaqaalaha inuu caafimaadkooda jaban yahay, laakiin uma malaynayo waddan caafimaad sarreeya inuu yahay. sababtoo ah wadamo badan oo waxaa jira ka caafimaad fiican sida hadda masar oo kaleeto. caafimaadkooda yacni high waay, inkastoo ayaga naftirkooda la dhaho keliyahay dadka kala baxaan. soomaaliya meeshaan cidda idin soo aragtay cid
oo kheyr qabto ma aheene ilaahay idin gargaaro fiidiyowgan meel dheer hala gaarsiiyo marba intaa